Bismillah, alxamdulilah wasala ala sayidina Muxammad wa ala alihi wasaxbihi wasalam. Dhammaan bahda ku taxan kanaalka waxbarashada ee Ibrah Solution kusoo dhawaada waa mar kale. Waxaan maanta idin soo gudbin doonaa qeybtii labaad ee naxwaha imtixaanka fasalka sideedaad qeybtiisa labaad ee ahaa naxwe. Qeybta hore waa iskala soo shaqeynay, haddana waa iskala shaqeynaynaa insha Allah qeybta labaad oo ah qeybta naxwaha. Haddii oo video kusoo gaarane like saar, share garey, subscribe ha ilaawin insha Allah. Qeybta koowaad, qeybta labaad naxwe gobogeli weerahan soo socda xarafka muujinaya jawaabta saxda iyadana waxaa saaran 40 dhibcood. Su-aasha koowaad, xiriiriyaalka shardileyda ah waa jawaabta waxaa waaye C oo ah 3 qaybood. Su-aasha labaad, marka aad daashaan waad nasataan hawraartaani waa jawaabta waxaa waaye B oo ah gooreyn joogto. Su-aasha saddexaad, tusaalahani Axmed casharka ayuu qoray waxa uu muujinayaa fal, jawaabta waxaa waaye C waa micnaha, laakiin hadda C ma qorno, waxaa qoran B aa qoran laakiin C aa laga rabay sababtoo ah ahaanshana A laga dhigay, kalkaaliyana A laga dhigay. Jawaabta waxaa waaye C ama B sida kugu qoran oo ah gudbe, falkaasi waa fal gudbe. 4, bisadu jiir bay dishay ereyga bisad waa jawaabta waxaa waaye A oo ah yeele, qofka falka sameeye waa micnaha. Su-aasha shanaad ee naxwaha, tusaalahani wiilku wuu wanaagsan yahay wuxuu ina tusayaa, jawaabta waxaa waaye B oo ah sifa caadi ah. Su-aasha lixaad, Axmed wuu seexday falka ma gudbaha ah ee meesha ku jiraahi waa, jawaabta waxay noqonaysaa B oo ah seexday. Su-aasha toddobaad, ninku libaax buu dilay yeelaha meesha ku jira waa, jawaabta waxay noqonaysaa, su-aasha waxaan maraynay oo toddobaad yeelaha meesha ku jira waxay noqonaysaa D oo ah ninka, qofka falka sameeye waa ninka. Su-aasha sideedaad, fal gargaarayaashu waxa ay u kala baxaan, jawaabta waxay noqonaysaa B oo ah 3 koox. Su-aasha sagaalaad, yeele iyo la yeele waxa ay ku yimaadaan fal, jawaabta waxay noqonaysaa A oo ah gudbe. Su-aasha tobanaad, Kismaayo waa tagi doonaa ereyga doonaa waa fal, jawaabta waxay noqonaysaa C oo ah kalkaaliye. Su-aasha 11aad, gabadhu way qurux badan tahay sifada meesha ku jirta waa, jawaabta waxay noqonaysaa D oo ah xulasho, laakiin micnaha qalad maya sax waay. Sifada meesha ku jirta waxay noqonaysaa, aan ku celiyo 11, gabadhu way qurux badan tahay sifada meesha ku jirta waa D oo ah caadi ah. Su-aasha 12aad, geelani waa ka badan yahay geelaas hawraartani waa sifo, jawaabta waxay noqonaysaa B oo ah C oo ah isbarbardhig. Meeshaas aan ku noqdo su-aasha 12aad. Su-aasha 12aad waxaa waaye geelani waa ka badan yahay geelaas hawraartani waa sifo, jawaabta waxay noqonaysaa B oo ah xulasho. Su-aasha 13aad, sida wanaagsan ee afka loogu dhawaaqo loona qoro waxaa loo yaqaan, jawaabta waxay noqonaysaa A
oo ah naxwe. Ereyga nin marka aan rabno in aan kooxayno waxaan u qori karnaa b oo ah niman. Shayga ku tusinayo heerka ugu sarreeya ama ugu hooseeya ee waxa laga hadlayo waa. Jawaabta waxay noqonaysaa oo ah xulasho. Su'aasha 16aad sifatayeed waa sifo loo adeegsado in ay caddeyso ama wax ka sheegto. Jawaabta waxay noqonaysaa oo ah magac iyo magacuyaal. Su'aasha 17aad ereyga wax muujinayo ama warbixin buuxda ka siiya falka waxaa la yiraahdaa. Jawaabta waxay noqonaysaa oo ah falkaab. Ereyadani oo iyo mise waxaa la yiraahdaa. Jawaabta waxay noqonaysaa xiriiriyaal. Hawraaradani soo socda kee baa ah fal ma gudbe. Waxaa fal ma gudbe oo ah Cali buu seexday. Su'aasha 20aad Faadumo waxa ay akhrinaysaa buug. Falka meesha ku jira waa. Jawaabta waxay noqonaysaa b oo ah akhrinaysaa. Falka la falay waxaa waaye akhrinta waa. Qaybta 3aad erayo isku aadi ereyada sida ay isugu macno yihiin adigoo adeegsanayo tiro adeegsanaya micnaha. Waxaana saaran 20 dhibcood saaran. Marka tirada adaa ku qoranayso tusaale ahaan halka tusaale ugu horeeya bixina. Inta kale adaa laga rabaa in aad tirada qaabka ugu qoran lahayd ugu qoreyso micnaha adaa laga rabaa inaad tirada ku qoreyso. Ani waxaa kuu sheega micnaha kuu sheega erey walba micnaha uu leeyahay. 1 ilaa 10 kuu qoran. 1 ilaa 10 noo qoran. Kan ugu horeeya waxaa waaye xoodiyo. Xoodiyo waxaa ku aadan salaaxo. Marka number 1 waxaa ku qore luul iyo salaaxo meesha u dhaxayso jawaabta lagu talagalay mogtahay. Bokiskaasi oo banaan meesha waxaa ku qore number 1 meesha ku qore. Waa fahanteen umaleynaa arday. Xoodiyo waxaa laga wadaa salaaxo laga wadaa. Su'aasha 2aad dhaxeeye waxaa laga wadaa labada leeyahay laga wadaa. Micnihiisa waxaa waaye labada leeyahay. Alhumeeyay micnihiisa waxaa waaye ibtileeyay. Tamar micnaheedu waxaa waaye xoog. Qasnad micnaheedu waxaa waaye sanduuq kayd. Luul micnihiisa waxaa waaye nooc ka mid ah macdanta qaaliga. Caado micnaheedu waxaa waaye wax la isku xirxiro oo dadka lagu aafeeyo. 8 sanku neef lama ogoli inuu jawaabteedu waxaa waaye waxa dhamaystir waaye waxaa lagu dhamaystiraa iga sarayn karo. Sidko micnaheedu waxaa waaye ereyga sidko micnihiisa waxaa waaye neef hal aan hooyadii ahayn lagu maalo. Qurbac oo ah ereyga 10aad micnihiisa waxaa waaye laboodka yar ee geela. Arday waxaan filayaa inaad ka faa'iideen insha Allah. Kuwa kala dhimana saana idinku soo dhigi doona hadduu alla raali ka noqdo. Asxaabtiina la wadaaga share gareeya subscribe-kana ayaa naga hilmaamin insha Allah. Wax badan aad ka faa'iidi doontiin oo ku saabsan dhan waxbarasho ahaato iyo dhan kaleba waa in soo dhigi doona insha Allah. Aadan u mahadsantiin. Waxaad ku mahadsantahay daawashadaada.